Asalaamu calaykum dhalinyaro soo dhawaada waa Macalin Maxamuud. Casharkan waxaynu ku arkaynaa 10kan erey meesha noo saaran. Ereyga koowaad groan. Groan waxaa la yiraahdaa qof markuu xanuun dartii la qayliyo. Tusaale ama daal ama waad xanuujisay ama qof baa ka dhinto war xanuun badan baa soo gaara. Yes, when the person has a lot of pain, xanuunka yani qayladu xanuunka darteed la qayliya la yiraahdaa groan. waliba xanuun bas ma ahan qofka markii uu maxay laga xanaajiyo xitaa. Yes. ereyga labaad guard waa qof inaad difaacdid, to protect someone, qof inaad difaacdid ama aad maxay hay'ad ilaalisid. Yes. guard waxaa kaloo la yiraahdaa qofka waardiyaha ah ama qofka ilaaliyaha ah. guard marka guard waxaa isticmaali kartaa to protect someone, qof inaad difaacdid ilaalisid. isla ereygaas waxaa isticmaali kartaa qof waardiya ah. Yes, I am a guard, waxaan ahay waardiye. ereyga saddexaad gulf waxaa loo isticmaalaa large difference. gulf marka waxaa loo isticmaalaa wax markay gap weyn ama difference weyn u kala dhaxeeyo. had for example gap u dhaxeeyo dadka taajiriinta iyo dadka fuqarada aad buu u weyn yahay. There is a wide gulf between the rich and the poor. gulf yani kala qoqobnaantaas ama differencegaas weyn waa loo isticmaali karaa ama gapkaas. gulf waxaa kaloo loo isticmaali karaa sea inlet. tusaale badda meeshay biyaha kasoo galaanay aad ku baaxadda weyn, the large inlet of the sea, ayadan waxaa la yiraahdaa gulf. Soomaali waxaa la yiraahdaa gacan. That's why maalmo maqlaysid gacanka Carbeed ama gacanka Eden, the Gulf of Eden. Yes. ereyga afraad gut waa dhiiranaan. Yes, dhiiranaan, geesinimo, bravery ama courage. labadaba gut waa la yiraahdaa. For example, she had the gut to speak the truth. waxay ahayd qof dhiiran oo runta wax ka sheegi karo. Yes. ereyga shanaad hail waxaa loo isticmaalaa roob uu la socdo baraf. Yes, roob uu baraf la socda la yiraahdaa hail. Yes. hail waxaa kaloo la yiraahdaa soo dhaweyn, in qof la salaamo la soo dhaweeyo la amaano. Yes. marka hail ayadana qaabkaas waa loo isticmaalaa. ereyga lixaad air waa timo, h waa silent, hair dadka iska lahamoyo air waa. Yes, timo. Yes. For example, she has long black hair. waxay leedahay timo dheer oo madow. Yes, hair. Haul waxaa way jiiditaan, inaa wax jiidid. Yes, for example, they had to haul the boxes upstairs. waxay jiidayeen boxyaasha ama kartoomada ilaa ay kor. Yes, haul. ereyga sideedaad head waxaa la yiraahdaa madaxa caadiga ee qofka ku yaalo ayaa la yiraahdaa head, ama sharxaad u isticmaalo ama ha ku fikiraya si ku taala head waxaa kaloo loo isticmaali karaa to lead, qofka inaa yani wadada ku hogaamiso. For example, he was chosen, waxaa loo dartay to head the team, to lead the team, teamku inuu lead garay. Yes. head marka waa madax, head waxaa kaloo loo isticmaalaynaa to lead, hogaamin. Yes. ereyga sagaalaad peel waa fiiqitaan. Yes, please peel the potatoes, barandhada fiiq. I am peeling the banana, waxaan fiiqayaa mooska. peel qaabkaas loo isticmaalaa. Yes. beep waxaa waayo yani wax inaad si dhuumasho leh oo si secretly u fiirisid ama si dhaqso leh u fiirisid. Yes. For example, I took a quick peep inside the bag. bagan si dhaqso leh u fiiri way quickly. ama hadii kale she peeped through the keyhole. meesha faraha laga gelin albaabka duleelkaas yar bay ka soo eegaysa. marka qofka inaad si adigu asagoo ku arkeynin aad u fiirisid secretly peep waa dhigi kartaa. si dhaqso leh qof inaad u fiiriso waa dhigi kartaa. Casharka intaas ayuu ku eegay. Thank you for listening. God bless you and have a good day. Bye bye.